kulanti wacan daawadayaal halkani waa janalka xulka ku soo dhawaada qodobadii ugu dambeeyay oo Soomaalidu idinkaga hayna maanta qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah Sandroshi oo hore u soo noqday taliyahan isagoo ku eedeeyay farmaajo in uusan wax tanaasul lahayn al-shabaab oo mar kale weerar ka geystay duleedka degmada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari Kenya magaalada Boosaaso waxa ay ka wadaan ciidamada ammaanka ee magaaladaasi howlgalo ammaanka lagu xaqiijinayo kadib markii halkaasi ay xalay laba qarax ka dhaceen maamulka Jubbaland waxa uu soo bandhigay 13 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadu tahay maamulkaasi qodobadaasi wixii nagu soo kordhay ayaan ku faaqiidi doonaa saaxiibayaal muuqaalkaygan inta aan ku guda jirno ee haddii ay tahay daawada markaadii ugu horreysay oo soo booqatay fadlan waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan la garisid oo aad share u tiraahay saaxiibada subscribe saartidna channelkan si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee halkan mar walba aan ku soo daawacno ogowna aragtidaada waa inoo muhiim ee qaybta dambe ee commentiga nagula wadaag aragtidaada aan ku xasuusiyo haddii ay tahay waqtigii salaada fadlan soo deko salaada oo dib ugu soo laabo daawashada muuqaalkan mahadsanid taliyihii hore ee hay'adda Nisa Cabdullaahi Sandroshi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uusan lahayn siyaasad tanaasul ku saleysan waxa uu sheegay 5 sano ee farmaajo ku fadhiyay filla Soomaaliya in shacabka ay barteen dhaqamadiisa iyo siyaasadiisa burburinta ku saleysan ee dalka gelinaysa xaalad hubanti la'aan dadka Soomaaliyeed sida uu shalay u siray maanta uma siri karo waa ay ogaadeen dhagartiisa iyo ballanqaadyadiisa ku saleysan beenta ayuu Sandroshi ayaa ku tilmaamay farmaajo nin aan tanaasul aqaan waa asigoo markaas hadal hambeys garanaynin oo taasi uu la jeeday in qof walba oo ka fikir duwan uu iska leexinayo farmaajo waxa uu duulaan ku qaaday maamullo asigoo oo xukunka ka tuuray dhowr hogaamiye oo ka soo horjeestay siyaasadiisa gurracan asaga oo xiriirka u diray dalal ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya iyo UK dhanka kalena haddii aynu eegno markan halkaasi kooxda al-shabaab ayaa deegaan lagu magacaabo Boonis ee dhaca duleedka Waqooyi Bari ee magaalada Mandheere ka geystay weerar ay ku dileen 2 qofood oo rayid ahaa dadka weerarka lagu dilay ayaa waxay ku sugnaayeen xilliga la dilayay xaafadahooda waxaana argagixisada al-shabaab ay dadkaasi ku tilmaameen in ay jaajuus u ahaayeen ciidamada Kenyaatiga ah kooxda al-shabaab ayaa maalmo ka hor fariimo hanjabaad ah u diray 2 qofood ee maanta ku dileen weerarkaasi kadib markii ay ogaadeen in ay warbixino la wadaagayaan kooxda ciidamada Kenya ee baacsanaysa al-shabaab mise baacsiga kula jirta kooxdii weerarka geysatay ayaa ka baxsatay mise ka carartay goobta waxaana iminka goobta uu ka dhacay falkaasi dilka ahaa ku sugan qaar ka tirsan ciidamada Kenya walow aysan weli la hadlin warbaahinta waxmadooyinkii ugu dambeeyay kordhayay ka geysanayaan al-shabaab deegaano hoos yimaada magaalada Mandheere ee Waqooyi Bari Kenya iyadoo iminkana la dareemayo in ay halkaasi ku sii xoogeysanayaan dhinaca kale waxaa maanta magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka Bari ee Puntland ka bilowday howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaaladaasi oo maalmihii ugu dambeeyay faraha ka baxayay ciidamada howlgalka sameynaya ayaa gurgur u baaraya xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Boosaaso iyadoo ay xalayto halkaasi ka dhaceen 2 qarax oo ah nooca bombo gacmeedka ah saraakiisha sameynaysa howlgalkaasi ayaa waxa qaarkood u hadleen warbaahinta magaalada Boosaaso iyagoo sheegay in howlgalkan uu daba socdo qaraxyadii xalayto ka dhacay magaalada Boosaaso kuwaas oo khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira geystay gudaha magaalada Boosaaso ayaa toddobaadadii ugu dambeeyay waxay noqotay furin dagaal iyadoo ay isku haystaan qaar ka tirsan ciidamada BSF oo taabacsan hogaankooda iyo kuwa taabacsan madaxweynaha maamulkaasi Puntland al-shabaab oo ka faa'iideysanaya xiisada ka kacsan magaalada Boosaaso ayaa iyagana waxay laabayaan dagaaladii ka geysanayeen magaalada Boosaaso iyadoo 20 sano ee ugu dambeysay amniga guud ee magaalooyinka ay ka kooban tahay maamulkaasi Puntland 90% uu ahaa mid aad u hagaagsan ugu dambeystiin haddii aanu eegno daawadayaal guddiga doorashooyinka heer maamul goboleedka Jubbaland ayaa shaaciyay in la qaban doono todobaadada soo socda doorashada 13 kursi oo ka mid ah kuraasta uu maamulkaasi ku leeyahay golaha shacabka qaar ka mid ah kuraastaasi doorashadooda oo la qabanayo ومثل قبل دورات الوادي السودان أيها وحى اسمه دولة كليهين حب بقول لبعتر يتدو حب بقول يصدن حب بقول صدق يصدق حب بقول صدق يليح هي حب لو بقول سجال يتبان وحنا مرمها
waxaana maalmahan laga shaqeynayaa hanaankii ugu fududaa ee lagu soo gabagabayn lahaa aqalka shacabka waa mise doorashada golaha shacabka. guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa waxaa carabku ka adkeeyay inay dadejin doonaan doorashada aqalka hoose iyada oo ay xuseen inay kusoo gabagabayn doonaan 25 bisha Febraayo oo ah jadwalka loo asteeyay in lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka. maamulka Jubbaland ayaa waxa uu horey u doortay 14 kursi oo ka tirsan golaha shacabka kuwaas oo qaarkood la doortay wixii ka dambeeyay heshiiskii lagu gaaray magaalada Muqdisho ee golaha wadatashiga ayaa waxaa muuqda in maamul goboleedyada dalka ay isku xilqaameen in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay kusoo dadejiyaan kuraasta golaha shacabka kuwaasi oo ay iminka si dardar leh usoo magacaabayaan maamul goboleedyada dalka walow aysan doorashada weli bilaabin balse hamiga ugu weyn ayaa waxa uu yahay inay doorashada qabsoomi doonto iyadoo aysan jirin qaylo sidii hore. daawadayaal muuqaalkii xilligan aad ka daawanayseen barta janalka xulka wararka waanaga intaa waa inoo kula dambe oo aanu mar kale halkan ku kulanay nabadgelyo.